laakiin fariin buu noo soo kaafaray fariintuu noo soo kaafaray waxa weeyaan wuxuu yidhi shanta salaadoodba aabbo weyse quran ku tukadaa ayuu yidhi marka fariintaasuu noo soo faray ee wiilkaagii marka sidaa u ogow odaygii marka gamas waran in caloosha laga geliyey baad moodaa wuu naxay mana dareensiin nimankii maxaa yeelay wuu fahmay wuu gartay fariinta wiilka maxaa yeelay sarbeeb bay ahayd waa hadal nin si u yidhi nina si u qaaday sarbeebtii marka maxay ahayd saddexda waqti qado iyo quraac iyo casho aabbo hal mar baan wax cunaa nolosha aad iigu adag wiilka saasuu usoo faray odaygii markiiba wuxuu yidhi markaad noqonaysaan isoo mara wuxuu diyaariyey hilib geel oo la solay ayuu 30 cad oo saaf oo midkiiba intaa la egahay u diyaariyey wuxuu diyaariyey subag ayuu u diyaariyo ubba ugu shubay u buuxiyey joog ayuu ugu shubay oo markaa u buuxiyey markay soo mareen buu wuxuu yidhi wiilkayga alaabtan meesha ku xirxiran meel buu intuu ku wada xirxiray u geeyo u dhiiba waxaad ku tirahdaan reerkii waa wanaagsan yahay hooyadaa waa wanaagsanta carruurta kale waa wanaagsan anigu waan wanaagsanahay waa fiicannahay laakiin ogow bishu waa 30 balliguna waa buuxaa waxaad ku tirahdaa buu yidhi sidaa ku dhaha markaasuu markaa yay fariintii nimanka qaadeenoo intay dhexda sii socdeenoo sahaydoodii ka yaraatay ayay yidhaahdeen warbaxaa meeshan ku jiro odaygii uu idiin soo dhiibay hadday fureenba hilib solay ah iyo waxaa ku jira meesha subag sixina oo markaa wiilka loo soo dhiibay markaasay hilibkiina dhowr cad ka cuneen subagina xoogaa ka shubteen markaasay wiilkii u geeyeen waxay ku yidhaha aabbaha wuu nabad qabay wuuna wanaagsanaa wuxuuna ku yidhi bishu waa 30 balliguna waa buuxaa